واحدة ما ضده معلن روبلي تبرد دبال بدماح يد الحزقية آد ودبي عدو ناكسن طبقة هذه بقول الله فوضى معناها أن كبد بهذه أنا قام مركز حولي شغل كوجا جرو عن معناها الله كل ما يدد معناها إسكان دبال لقونين حتى اللي ديسك سوى هذه هو خطر بدن كوجلي هو كبد بهذه إلا يدور طبقة فوضى جارهايو ومركز أساسا معناها إلا يحدنا معناها ينفعوا للناس أنو تاجنا هنا بلياتك واحترا دونير أو على مكة ببنيان أي إسقي ركلا الله شقي حبت كوباد اللي إذا أوجا قاضيان دالحسيال سومالية سي أوجيان حبت الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومعلق الطوبرات دباشة حبت الليدو ومع الربلة والتغانين عن صنع عن حبت كوباد الليدو حتى لو عنكو سعنا حبت الله بعد تيجي إن شاء الله تلقى بعدي سوري هذا سومالي بدو بدي لي موجودان سوري هذا صوت العيستقة ما شاء الله حتى وعنكو سعنا إن شاء الله دون بدنا نقول رأي ماشي تاجل ما شاء الله وأسارك دون نلش هذه من راعي ما شاء الله ما شاء الله وطن كوضع يا حيوان أقوى ما قدونا تمثيل ogow dabcan meesha la taagan yahay waa bartamaha xeebta labaad xeebta Lido sidaad u jeedaan dadweyne badan ayaa xeebtan yimaada waa xeebta labaad tan koobaad ma ahan oo dabaqyada iyo goobaha dalxiisku ay saaran yihiin waa xeebta labaad dad badan ayaana maalin kasta halkan yimaada si ay dalxiis ay ugu qaataan waa yaani awood rabaani ah in badda dhaxdeeda meel la istaagi karo ay jirto sidan oo kale runtii waa yaani waxyaabaha dadku inay ku cimro qaataan ay ka mid tahay marka doonyahan waxay soo qaadaan dadka waxay ka qaataan khidmad yar oo hal $1 ah halkan ayay keenaan dadku leer bay ku qaataan waxayna dareemaan in dabcan wadankooda ay ku damaashaadayaan oo ay ku dalxiisayaan doonyahan oo loo sameeyo kuraas ay dadku ku fariistaan iyo sharaxaadyo kale oo soo jiidasho leh ayay ciddii aragtaa ku qasbanaanaysaa inay raacdo si ay badda gudaheeda ugu soo qaataan jawi macaan kaa oo ilowsiinaya duruufaha nolosha iyo kuwa qaar ee dalka ka jira waa kuwan dhallinyaro ay markii ugu horraysa tahay inay u dalxiis tagaan xeebta labaad waxaannu waraysiyadan kula yeelannay badda gudaheeda maanta dareenkayga waa maanta aniga iyo familkayga maanta waa isla soconaa dareenkayga wuxuu marayaa heerka ugu sarreeyo farxaddii ugu wanaagsaneed oo aan haystaa maasha allah waxaan joogaa dalkayga Soomaaliya xeebta Liida aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan ahay nin weligiis dalkiisa jeclaa dadkiisana jeclaa in uusan meelna uga dhaqaaqin jecel aad iyo aad Soomaaliya Sember FIFA waxaan dhila anaga waxa dhalinyarada aan fahmino madaxda hoos oo soo fiireen inta oo markin oo waddanka wax soo qabsano إن شاء الله هذا ماشي أنا جوجنا كسي أردونا أنا نيدي حتى حكوجر إن بحال نيدي كوجر تدي أو دتك أو ودنك أو حكاية أو سميان حلا بليرد رجليان بليرد مركز وحبنا سمينا إنه روبلي ayaa sheegay inay jirto fursado ganacsi oo dahabi ah taa oo ka banaan xeebta labaad maadaama hadii dhismayaal casri ah laga sameeyo ay tahay goob dalxiiska ku macaan oo dad badan ay nacawsi u imaan lahaayeen badda gudaheeda روبلي هي dalxiis ba soo gabagabay labaad ka waran fursadda waddankeenu waa qurux badan yahay wuxuuna alla ku manaystay kheyraad badan sida bad beero buuro webiyo macdan iyo shidaal
hase ahaatee ma muuqato caqli iyo cudud u diyaarsan ka faa'iidaysigooda.